aasha safiya ee la xidhiidhay ruuxii dumarka ahayd ee laga geeriyooday odaygeedii allaha u naxariistay uu ka geeriyooday geeridu waa lama huraan iyo inay ku ciddo tirsatay bilihii miilaadiga halkii la doonayo inay ku ciddo tirsato bilahan dayaxa ama qamariga ama hijriga waxaanaynu ogsoonnahay inay siyaado wataan bilaha miilaadiga ahay oo dee sanadkii 11 bilood ugu dhowaan ayay isdheer yihiin marka waxaa halkaa inooga soo baxday inaan ciddadii 4 bilood iyo 10 ka ahayd waxba ka dhinayn mar hadday ku ciddo tirsatay 4 bilood iyo 10 kuwan miilaadiga ah laakiin ay siyaado la socoto marka siyaadadaa dhowrka habeenihi waxba yeeli mayso mar haddii ay jahli uga dhacday oo iyadu dadaalaysay ciddadeediina kol haddii 4 bilood iyo 10kii ay dhammaysatay qamariga ahaa ama hijriga ahaa way u dhan tahay kol haddaanay u kasinna wax bidco ah oo ay ku dhacday oo ay ku dambaabaysaa ma jiro waxay u aaminsanayduun aqoon darrun bay ka ahayd marka ciddadeeda way u dhammaatay waanay xalaalowday haddii alla u qadarana cid kale way guursan kartaa su-aashaas hore jawaabteedu waa caynkaa su-aashan labaad ee sheegaysa da-yartaa ku sheekaysanaya ama baraha bulshada ama qalabkan isgaadhsiinta ah ee casriga ah ee soo kordhay haddii ay guur u jeedaan oo guur xalaala labada qof ay kala doonayaan waa loo ogol yahay inay sarkaan iyo inay wada hadlaan labadaba sharcigu wuu u saamaxayaa oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam taa tusaalu inoogu ahaa dadkana wuu u fasaxay laakiin midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan wax waliba xad buu leeyahay is-araggaa iyo wada hadalkaas waa inuu xad yeeshaa labada qof intay isku qancayaan xagga guur ahaan ayay sarki karaan iyo hadalka inta ay ka boganayaan danahooda la xidhiidha guurka hadday tahay wakhtiga haddii ay tahay sidii hawsha u abaabuli lahayn haddii ay tahay meherku wuxuu noqon lahaa arrimaha intay ka wada hadlayaan intaasoo dee lagama maarmaan ahoo dhismihii qoyska la xidhiidha laakiin arrinta waxaa intaa sii dhaafsan ee aynu ogsoonnahay siday u socoto ee da-yar badani ay u wadaan oo markaa ay uga niyeysan yihiin qaarkood allaha hanuuniye inuu wixii noqdo waxay ama ku raaxaystaan amaba fitno keeni karaba inay sino iyo xaaraan ku dhacaan ila qofkii dadkii markay isbartaan isku gooni noqdaan isdhexgalaan hadallo kala kaankaana ay wadaan shaydaanku uu dhex gelayaa uu ka faa'iidaysanayaa marka ceeb iyo xumaan bay uga dhacayaan taasi waa xagga sharcigeenna waa xaaraan inuu qofku ilaahay uga toobad keenana weeye waxay sababi kartaa nicmooyinku ilaahay siiyey ee maqalka iyo aragga iyo fahamka inay xaaraantaasi ka tegsiisaabaa suuragala ilaa nicmooyin baa ilaahay uu ku siiyo nicmooyinka haddaad khayr u isticmaali weydo ilaahay wuu kaa masixi karaa marka waxaynu leenahay yuu shaydaanku idinka faa'iidaysanine waxaa waa lagu fitnoobaya ka daaya oo dhinaca fiican u isticmaala dhinaca xaaraantaana joojiya sharci ahaanna ma bannaana su-aasha saddexaad ee aamina waxay iyadu la xidhiidhay xagga meherka haddii ruuxii dumarka ahayd saygeeda ay meher ku leedahay ase aanu siinin sakadiima ku waajibaysa haway ku waajibaysa hadduu xoolo hayo oo uu siin karo iyadii oo iyadu ay ku daysato oo aanay ka qaadanin dee waa wax akownka iyo baanka u yaalloo kale waxay la mid tahay lacagtan akowntka ku jirta ninkaagii xoolii wuu hayaa wuu kari karayaa waanu ku siin karayaa adigaa laakiin ku daystay oo ku dhaafay lacagtan akoonka taallana sanad walba waa lagu yeelanayaa sakadii sanadka labaad baa lagu yeelanaya 10 sana lagu yeelanaya adiga iyo masaakiintu waxay isugu imanaysaan xisaabi xil ma leh haddii xoolahan ay sakagal ay yihiin oo saka ay gaadheen halkay ku sakoobayeen $3,000 iyo wixii ka badan sanad walba waa lagu leeyahay sakadii marka waxaynu leenahay hooyooyinkii iyo hablaha ka faa'iidaysta meherkiinoo mar haddii rag weydiin helaya intoo ka qaadataan ku shaqaysta oo ka faa'iidaysta oo sadaqada ka bixiya oo sakadu iyo idinka marin saddexdii su-aalood waxaan filayaa jawaabooda markaynu soo koobno inahaasay noqonayaan wallahu aclam